wuxuu imaam iyo khadiib ka noqday masjidka Nuur ee ku yaala degmada Cabdicasiis wuxuuna salaada tujinayaa jamaacada ku xiran masjidka. ashhadu an la ilaha illa رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. magaciisa saddexan waa Axmed Cabdulqaadir Dayib oo loo yaqaan Axmed Saqiir. dad badan ayaa ku xasuusta magacii uu ku lahaa saaxada kubadda cagta, farsamooyinkii u gaarka ahaa iyo sumcaddii uu ka sameeyey kubadda cagta. Axmed Saqiir gool. Axmed Dayib Axmed Saqiir ayaa u soo celiyay daawadayaal ee goolkii laga dhaliyay kooxda Hegan. wuxuu muddo 9 sano oo ka mid ah kooxda Hegan iyo qaranka Soomaaliya isagoo kula guuleystay koob muhiim ah. kubadda wallahi waxaan ku dhex jiray 2009kii ayaan ku soo biiray kooxda kubadda cagta Hegan ilaa 2018 aan ku dhex jiray. fursado badan aan helay, juhdi badan waa geliyay, dadaal badan waa geliyay. yaraanteeda mar walba wuxuu ahaa jiray kubadda inaan hami aan ka gaaro, juhdi badan aan geliyo. hamigeygana mar walba wuxuu ahaa inaan qaranka Soomaaliya aan u dheelo. waxa waaye ilaahayna taas waa ii suurtageliyay. adiga dhowr qaran aan baxay. adiga qarankeyga ugu horeeyay waxaan baxay 2000 maxaa la dhahaye 2011kii aan baxay. qarankeyga ugu horeeyay taas ahayd oo aan ku soo dheelay maxaa la dhahaye Tanzania garoonka Darussalam Stadium. wallahi Hegan horta marka aniga koodi aan u imaanayay waxaan u dheeli jiray garabka aan dheeli jiray, weeraraan dheeli jiray, satan dheeli jiray. markii oo horyaalka lagu qaban jiray 2011kii jaamacadaha garabaan dheelayay markaas soo xasuustaa. kooxda Hegan marka imaanayay waxaan ku imaaday weerar ahaan aan ku imaaday, balse gadaalii dambe macalinka waxa ila fikrad macalinka wuxuu helay oo macnaha ina gadaal aan ku fiicnaaday oo lambarka tareyga sidoo kale dubaha labada meelba oo idilsi jiray. sidaas darteed ayaa gadaal ugu soo noqday gadaalii dambe macalinka sidaas ila jeclaaday. kadibna waxa waaye heer qaran aan ku sii gaarayba. koob waa la qaaday maadaama koob badan aan final imaanay oo suurtagali weysay inaan qaadno, laakiin waxaan la qaaday horyaalkii mar dhow 2015 ay hananaysay kooxda kubadda cagta ee Hegan. waxaan kaloo la qaaday maxaa la dhahaye koob kale oo munaasabad ah oo adiga ilaa 3 way gaarayaan koobka munaasabada ah. inta kale wallahi meelal fiican aan imaadnay finaalkii, balse laakiin wayna suurtagali weysay inaan koobkaas aan hanano. jamaacada masjidka sida joogtada ugu xiran waxaa ka mid ah macallinkii hore ee kooxaha Banaadir, Dekada iyo Horseed Cumar Maxamed Naasir Cumar Caruus, kaas oo sheegay in qoyska Axmed Saqiir ay yihiin culimada diin. waa qof farci asal u lahaa xagga diinta ah. runaantii wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada ugu firfircoon degmada Cabdilcasiis. mar walbana u diyaar ah inuu taakuleeyo wax walba uu sameeyo. wax badan ayaad ka aragteen YouTube-yada asagoo ku jiro jumcaha tacliiqa jumcaha la sameynayo. waa wax heybad ilaahay u siiyey familkoodii inay ka mid noqdaan aaladiin, welibana isboortiga noqdaan. aabihiis wuu soo cayaari jiray, asagana wuu cayaarayaa maanta, inkastoo hadda cuslaaday oo ku soo biiray dhalinyarada waaweyn. alxamdulilah rabbil caalamiin. Axmed wuxuu ku soo biiray maamulka masaajidka maanta aan ka mid ahay. ciyaaryahanada kubadda cagta aad ay ugu kala duwan yihiin nolosha ka dambeysa kubadda cagta marka ay ka fariistaan. haddaba maxay ahayd go'aankii uu gaaray Axmed Saqiir markii uu soo gabagabeeyay xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta? wallahi waxay ugu dhalatay horta waxaan waa waalidkaaga sidoo macnaha ku soo barbaariyay mar waliba ku xiran tahay. anigana alxamdulilah waalidkayga waxa ugu soo barbaariyeen inaan sida ay yihiin oo kala camal inaan noqdo sida oo aabbahay oo kale culimada masjidka uu ka mid yahay. macallin wallaha aad iyo aad loo yaqaana asiga mar walba ugu barbaari jiray yaraanteeda, laakiin balse hamigeyga mar walba kubadaasan saari jiray. markii dambe marka horyaalka 2018kii marka xogo dhaawacyo aan dareemay oo dhaawacyo badan isoo haleelay. kadib waa markaas waxaan isku barnaamijyay inaan kubadaaneetay intaas soo dheeli karo waa soo dheelay. kadib aan macnaha
aan xooga aan saaro diinta iyo maxaa la dhahaye taqwada alle. Waxaan mar walba ku xariirsanahay masaajidkan, mar walba meeshaan joogaa, masaajidkan u badannahay, inteeda badan juhdi badan waxaan geliyaa firaaqada yar iyo jaaniska yar aan helayo inaan masaajidka aan geliyo, aan ka faa'iidaysto wax waliba. maasha Allah culimo fiicanaa noo joogaan masaajidka, dhalinyarta soo saarayo wax baraayo sida Sheekh Liibaan oo kale, macnaha sheekha xaafadda, sida aabiyo oo kale asigana sheekha xaafadda dadka loo si fiican loo ictiraafsan yahay. Marka ayagana dadaal iyo juhdi badan ay gelinayaan dhalinyarta xaafadda ku nool, balse aniga aad iyo aad waxaan u jeclaaday inaan hadda macnaha diinta aan ka shaqeeyo, dacwada alle iyo taqwada alle aan ka shaqeeyo hadduu Ilaahay nafta noosan.